hargeysa ayaa liigu soo cunsuriyey oo liigu dilay buuti ayay ila dhaceen ay gashanaayeen buutiga waaweyn ee askarta ah iyo qori baadkii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذن سلامي دمان داودياشا محالة لها داون دونو كديب كان عن طوبي وقاري دونو ولا ليالو وحان إذن كعد صنايا إنا إيشير كريسي مانتا وحا إذن كالها اللايا هيبل بي كل عدي قصو كوما دهايو قصة أني إبدا عدان مانتا كالش إذن كشيكينايا ولا ليالو labada kun iyo 16 bilii ugu dambeysay ayaan waxaan imid magaalada Hargeysa maxaafad la yiraahdo Jigjiga yar ayaan ka digay masaajidka dabarkiisa ah waliba maxaa la yiraahdaa dugsiga hoose ee dhexe ee Furqaan ka soo horjeedkiisa guri ayaan digay Furqaan guriga ku xiga guriga ku sii xigana waxa deganaan xildhibaana أنا ما أقولين waxa igu dhacday qiso cajiib ah marka walaalayaalow qisada igu dhacday waxay ahayd ninkii xildhibaanka ahaa oo nin aqoonin ayaa maalin maalmaha kamid ah barqa ah ama 4 saac ay barq bas u yaqaan anigoo gurigii ku dhex jira ayaan buuq maqlay buuqii ayaan u baxay waxaan arkay askar iyo dad meesha taagan waxaan garan waayay maxaa dhacay wax ii sheega waan arki waayay meesha buuq ka jiray odayar oo agteyda maraya waxaan ku dhahay adeero inta ka dhacay kelimada intaas aan dhahay ayaa la igu cunsuriyay adeero inta ka dhacay waa kaliya intaas oo kaliya ay markaas ayaa waxa igu dhacday odaygii ileen waa ninka leeyahay waa xildhibaan magaciisa waxa la yiraahdaa garcase anigu maynaastiisa naqaan magaciisa saddex nin ma aqaan saddex nin oo askar ayuu soo kaxaystay oo dila sida maaragtay filimada nimanka laadariinta ah siday maaragtay baawurka laanguruus intuu hor istaagay oo sas isiri oo sida la ii dilaayo oo fiirsanayo markaasay nimankii intay u soo dhaqaaqeen ayay qori baadkiis ayaa la igu garaacay dhabarka iyo waxa liiga dilay kaliyaha kuma dhahaya barankii ahay waana been kuma oranayo waa wax xuna oo igu dhacday aniga oo aad arki doontiin Soomaaliyay been iyo run way kala badan tahay qofku markuu run sheegayo wixiisu waa run in badan ayaan damacsanaa in aan soo bandhigo arintaas laanahu labadii bilood ama bishii iyo barkiiba kalideyda waa la safeeyaa oo waa la iga safeeyaa waxaan dahab haystay waxaan lacag haystay kalida ay iga dhamaatay dabarkasan isaga daaweynay tacbaan ayaan ka ahay haddana waan u jiifaa marka walaalaha Soomaaliyeed inay caawiyaan ay iga gaarsiiyaan jamhuuriyadda Soomaaliland ma oranayo jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xun ama idibaatis waxa ku jira dad fiican waa ninkaas ayaan dacwo ka ahay iyo saddex askar oo isagu watay oo keensaday maxay igu dileen maxay iga rabeen ma garan karo daawade adigu misdii lahayd wiliga qofkan ayaa ka soo jeeda jamhuuriyadda Soomaaliland aniga kula hadlay waxaan ka soo jeedaa jamhuuriyadda Soomaaliland aniga oo dhashay Soomaaliland ayaa liigu soo cunsuriyay oo liigu dilay oo dhabarkayga ay kala furan yahay lafta dheer amuda faqriga ama dhafta dheer qofba sidoo u yaqaan way kala furan tahay waxa la igu dhuftay maxaa la yiraahdaa buuti ayay ila dhaceen ay gashanaayeen buutiga waaweyn ee askarta ah iyo qori baadkii waxaan ahay naafo waa la inaafay marka waxaan rabaa walaalaha Soomaaliyeed ee muslimka ah islaamka ummadda Nabi Maxamed ah ee jecel wanaaga ee nacab dulmiga inay ii sheekarayaan ee ii gaarsiiyaan markii aan xabsiga tagay xabsiga xitaa ma aqoonin dadkii xaafadda deganaa iyo guriga aan deganahay dadka aan ka deganaa ijaarka ah ayaa ila carareen waxay igeeyeen xabsiga qoorbuur xabsiga la yiraahdo xabsigii waxa la yiraahdaa qofku waxa hadlo maxaa lagu sameeyay waxa la igu sameeysan isaan markii arkeen hadalkayga in ama reer koonfur iyo oo ku jiro ayaa la iga qaadi waayay dacwadii
waxayna iraadeen dacwadaadu ma soconayso iska soco xildhibaan baa ku dacweynay daawadayaal ama walaalayaal ma iqabataa sidaasi anigoo ah qof muslim ah qof islaan ah qof Soomaali ah qof u badashiba Soomaaliland in la igu cunsureeyo Soomaaliland dhexdeeda ciyaal yaraan wato oo reer koonfur ah oo aan islaha wadanka meeshaas nabadda ah aad ku korsatid iyadoo dhalatay waan cuqdadooday cuqdad ayaa qabatay waana ka soo cararay waxaan isiri maadaama aad u dhalatay lagu dilay ilma agoor reer koonfurniya la dilay waan ka soo cararay walaalayaal qof allaaliyo qofkii gaaro ee muslim ummadani maxamed shahaadanaay ay sheekay hay gaarsiyo waxaan weydiinayaa wariyaahay garcase oday weyn ayaa tahay waad dhali kartaa qasmi billaahi wallaahi oday weyn ayaa tahay oo duq ah maxaad ku keentay inaad anoo wax aan ka haleeyay jirin inaad iska keedishay ma ilowday 2016 waxa la yiri la yeela wuu iloobaa yeelaas ma iloobo gabadhii guriga yareed ku jirtay ee fooqa deganin ee aad gardarada ku dishay saddexdan in askarta u dirtay xasuusan tahay ma ilowday aniga kuma iloobin waa ku xasuusanahay la yeelaa wuu iloobaa yeelaas ma iloobo ma ogtahay aakhiro iyo adduunku inay kala badan yihiin wixii aad samaysay iyo dilkii aad idisheen anigu aakhiro iyo adduunku ma aanan cafinin waan ku haystaa haddana waxaan u soo bandhiganayaa jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Muuse Biixi iyo xabsiga Koodbuur ninka mas'uulka ka ahaw maanta ka ahaw shalay inuu ka ahaa ma garanayo hadda kan ka ah inuu ka ahaa ma garanayo warka hadda ka ahaw qadiyadaas baan rabaa inaad ii gasho haddii aad nin muslim oo islaam ninka garcase la yiraahdo waaba Ciise Muuse hadan qabiilkiisa ku faafaayo dadku qabiilka isku gartaan ninka Ciise Muuse ee mulac deganaa ee fooqa degan anigu magaciisa saddexan ma aqaanay garcase la yiraahdo hal ii gaarsiiyo waxa uu igu dilay hal iiga soo jawaabo Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland ee barakaysanay ii kaca wixii islaamaha ii kac wixii Soomaali ah taas caseed ilaa reeskoon booni degan ii kaca wixii youtuber oo ii share garee wixii reer Facebook oo ii share garee lay gaarsiiyo walaalayaal wallaahi ciyaari maayo ilaa 2016 cuqdad ba iska keenaysatay waxa la yiri qofku marka wax la yeelo wuu go'daa oo ma iloobo laakiin qofku marka wax yeelo wax oo dadka dhibaatay wuu iloobaa markiiba marka ii gaarsiiya in ay dhibaateeyeen lacagtaydii wixii aan maal lahaa iyo mood ay ku dhamaatay kalideeda ilaa iyo haddana dawadeydii ay taagan tahay marka aakhiro kumaan cafin adduunyo kumaan cafinin haddaan maanta dhinto kuma aanan cafinin waxaan ku fadhiyaa ilkan ku fadhiyaa dhibaatadeed ii geysatay anoo wax aan ka halay jirin guri kaama qaadin boos kaama qaadinin kulama aanan murmin kuma aanan caayin waxa tahay nin u qaldan waxa tahay nin kibir badan waxa tahay nin isqaad badan laakiin ilaahay agtiisa marka la tago isqaadku wuu dhamaanayaa ها ودمانيا isqaadku hadda inaad dhimatay ma ogi kooraan inuu ku helay ma ogi kooraan ku dilay dhibaatad ii geysatay laakiin dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa ee sharafta leh inay ninka ii soo qabtaan ee saddexdii nimankaasi waxay ka howlgeli jireen Koodbuur askarta Koodbuur ayay kamid ahaayeen sidaas baan u malaynayaa waliba maalintii aan meesha tagay mid baan arkay oo iri waa kan ninkii idilay aad baan u garanayaa saddexdooda hadii layso ku hor istaajiyo maanta aad baan u garanayaa nimankii madmadooba ee shayaadiinta ahaa ee dadka iska dilayay ilaa 2016 cuqdad ba iska keenaysatay waxa la yiri qofku marka wax la yeelo wuu go'daa oo ma iloobo laakiin qofku marka wax yeelo wax oo dadka dhibaatay wuu iloobaa markiiba marka ii gaarsiiya in ay dhibaateeyeen lacagtaydii wixii aan maal lahaa iyo mood ay ku dhamaatay kalideeda ilaa iyo haddana dawadeydii ay taagan tahay marka aakhiro kumaan cafin adduunyo kumaan cafinin haddaan maanta dhinto kuma aanan cafinin waxaan ku fadhiyaa ilkan ku fadhiyaa dhibaatadeed ii geysatay anoo wax aan ka halay jirin guri kaama qaadin boos kaama qaadinin kulama aanan murmin
وما أنا معين وحتى هينين وقلدن وحتى هينين كبر بدن وحتى هينين إسقاط قاد بدن لكن إلهي أكتيس مركلة تغو إسقاط قادكو ودمانيا ها ودمانيا إسقاط قادكو حتى إنا دمتي مؤوي كورانا إنو كهلي مؤوي كورانا كدلي لباتد إيجيستي لكن دولة الصومال لا وحان كوحد صنيا شرفت لي إني نينكا يسو قبطان يصدح ديني نمان كاسي وحي كهول جرين إن كودبور أسكرت كودبور أي كامل آيان سيداس بان أمالينيا وليبا مالنتي عن ميشة تيجي مدبان أركي وإنو واكا نينكي إدلي أدبان أقرنيا سبحدود haddii laysu ku hor istaajiyo maanta aad baan u qaranayaa nimankii madmadooba ee shayaadiinta ahaa ee dadka iska dilayay